wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay doorka qaadida canshuuraha waxa uu la qaatay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya waxaana ka dhacay kulankaasi magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa warbixintani faafahinaya. kulankan looga hadlaya sida ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidanka booliska iyo wasaaradda maaliyadda iyo qaabka loo aruurin karo canshuuraha dalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qoloocow, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale. inta uu socday kulanka ayaa taliska booliska iyo wasaaradda maaliyadda ayaa waxay si qoto dheer uga hadleen habka loo aruurin karo canshuuraha iyo in qaab wanaagsan loola dhaqmo shacabka Soomaaliyeed ee canshuur bixiyaha ah iyo in la qalabeeyo hoggaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jenaraal Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay gartaan ama ay fahmaan in waxa laga qaado ay tahay mid dalkiisa wax loogu qabanayo. ciidanka booliska Soomaaliyeedna ay ka go'an tahay in ay ilaaliyaan sharafta iyo hantida muwaadinka Soomaaliyeed. qofku waa inuu gartaa waxa laga doonayo inaysan ahayn wax qof qaadanayo ee ay tahay wax loogu adeegayo ummadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa. annaguna waxaan u heelanahay qof walba canshuurta bixiya sharafta iyo karaamada uu leeyahay inaan dhiigeeyo u horo, inaan sharciga ku ilaalino, inaan nafsadiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisana u ilaalino. wasaaradduna waxay nagu dhiirigelisay runtii noona baraqaaday in ay dhinac walba taageero ka bixin doonto dhinaca dhismaha ilaalinta canshuuraha booliska. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in qorshe 10 cisho ah ay sameyn doonaan taliska booliska iyo wasaaradda maaliyadda taasoo ku saabsan qaabka canshuuraha loo qaado. waxa kale oo halkan aan isku nimo xafiiskan taliyaha iyo ku-xigeenadiisa oo aan iyadana doonaynaa in qorshe isla sameeyno muddada 10 cisho soo socda inaan qorshe isla meel dhigno, isla hana qaadno, inuu dadweynaha la sheekaysano, inaan qof walba xaq wixii loogu leeyahay si usluubaysan looga soo qaado. xilka annagana saarayna markaa wuxuu noqonayaa waxa weeye wixii aan soo qaadnay halka ku baxeen inaan dadka u soo bandhigno, inaan dadka wax ugu qabanno. lacagta la ururinaya waxay noqonaysaa lacag aan kaga kaaftoono inaan mar walba cid kale waxna siiyan idhaahno. anigu waxaan always idhahdaa waxa dalkani waa dal qaniya weeyaan, waxyaala aan adduunyada kale lahayn baan leenahay. nimankii maanta la hadlayay taliya waxaan ku idhi anigu geedka aad joogtaan wax ku hoos jira waa laga hadlay research baa laga soo saaray wadankan inuu yahay wadanada ugu qanisan ayaa cid waliba ogtahay. inaynaan la soo bixinna dad baa dadaal ugu jira inaynaan la soo bixin dad baa dadaal ugu jira. allaahumma hal balaqtu waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsano annaga kollaba annaga iyo nimanka booliiska la yidhahdo waan isku mehersannahay, meel baan wada maraynaa, waxbaan soo ururinaynaa, wixii la soo ururiyeen wixii dalkaa lagu dhisaya, dalkaa dib loogu soo celinaya, kharashkaan u baahnay baan iskaga bixinayna. dhinaca kale wasiirka maaliyadda uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qoloocow ayaa kormeeray hoggaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, ayagoona indheeyay qaabka ay u socoto qaadista canshuuraha iyo sida loo xoojin lahaa hanaankaasi. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.